Luis Diaz oo wadahadal la furayo Liverpool iyadoo uu xiise ka helayo Barcelona. Warbixin ka soo baxday Sky Sports ayaa sheegaysa in Luis Diaz uu dhamaadka ciyaareedka la furi doono Liverpool wadahadalo heshiis cusub ah oo uu waqti dheer ku sii joogayo kooxda. Diaz oo 28 jir ah wuxuu door weyn ka qaatay hanashada Liverpool ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay 12 gool waxaana kaliya ka badan Mohamed Salah. Heshiiska Diaz ee Liverpool wuxuu dhacayaa 2 sano kadib. waxaa horey loola xiriiriyay kooxaha ka ciyaara Saudi Pro League iyo sidoo kale Barcelona. Ciyaaryahanka caalamiga ah ee Colombia wuxuu Liverpool ku biiray January sanadii 2022 isagoo 37 milyan uga soo tagay kooxdiisii hore. Muddo 3 sano iyo bar ah ee uu joogay Anfield, wuxuu sidoo kale kula guuleystay Premier League, FA Cup iyo 2 League Cup. Dhanka kalena, Real Madrid oo ku soo biirtay loolanka loogu jiro saxiixa Victor Gyökeres. Kooxda reer Spain ee Real Madrid ayaa si rasmi ah ugu biirtay tartanka lagu doonayo weeraryahanka Sporting Lisbon Victor Gyökeres suuqa kala iibsiga ee soo socda. Wararka ka imaanaya Sky Germany ayaa sheegaya in Real Madrid ay ka mid tahay kooxaha haysanaya saxiixa weeraryahanka 26 jirka ah ee reer Sweden. Isla warbixinta ayaa intaas ku dartay in kooxaha Manchester United, Chelsea iyo Arsenal ay sidoo kale aad u xiiseynayaan laacibkan, halka Bayern Munich ay tartanka isaga hartay sababo la xiriira qiimaha sare ee lagu doonayo xiddiga. Gyökeres ayaa la rumaysan yahay inuu Sporting ka tagi karo haddii kooxi bixiso lacag u dhaxaysa 60 ilaa 70 milyan oo euro. Arsenal ayaa haatan loo arkaa kooxda ugu cadcad ee ku guuleysan karta saxiixa weeraryahankan cajiibka ah. Ugu dambeyntiina, Real Madrid oo loo ganaaxay fal fool xun oo ay ku kaceen taageerayaasheeda kulankii Arsenal. Guddiga anshaxa, akhlaaqda iyo ganaaxyada UEFA ayaa go'aan ka gaaray ciqaab la dul dhigay Real Madrid kadib dhaqankii cunsuriyadda ahaa ee taageerayaashooda sameeyeen kulankii Champions League ee ay martida u hayeen Arsenal. Kooxda reer Spain ayaa lagu ganaaxay 15,000 oo euro, waxaana laga mamnuucay inay iibiso tikidaha hal kulan oo ay marti ku yihiin tartamada UEFA. Si kastaba, mamnuucista tikidaha ayaa dib loo dhigay 1 sano iyadoo lagu daray xilli tijaabo ah. Kulanka Arsenal iyo Real Madrid wuxuu ka dhacay 8 Abriil magaalada London. Kulankii lugta labaad, Arsenal ayaa mar kale guul gaartay, waxayna u soo gudbeen afardhamaadka Champions League. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii koobnaa ee aan ugu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtaana nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.